dowladda dhexe federaalka Soomaaliya waxay baadigoob adag ugu jirtaa dowlad ama dowlado buuxi kara booska dowladda Mareykanka dhaqaalihii ay ku bixi jirtay ciidanka midowga Afrika ee Soomaaliya ka howlgeliyay 18 sano isla markaana ilaa iyo hadda aanan lahayn ciidan qaran oo amniga la wareega haddaba dhaqaalihii baadigoobka dowladdu ay ugu jirtay ee la doonayay in la helo ka hor inta aan la gaarin bisha December sanadkan 2026 ayaan xog aad u dheer oo waliba salka ku haysa xaqiiqda dhabta ah ayaan barnaamijka kugu soo gudbi doonaa qodobka koowaad madaxweynaha mudanaafka ku jooga filla Soomaaliya shuruud ayaa hortaala haddii aad rabto in ay beesha caalamka ama dalalka dareynaya Soomaaliya ay lacag ku bixiyaan arrimaha Soomaaliya talada dalka dhulka dhig heshiis siyaasadeed la imaaw isaguna wuxuu rabaa iyadoo aan heshiis siyaasadeed lahayn in Soomaaliya dhaqaale lagu bixiyo waa labada arrimood oo is hortaagan muddada uu haysto madaxweyne xasan sheekh waa bilaha August iyo September haddaan labadan bilood la helin heshiis dhammaystiran October wax dhaqaale ah oo la filayo oo xitaa kabkii caadiga ahaa oo mar walba dowladda lagu kaabi jiray dhaqaalaheeda ayaa joogsan doona bangiga adduunka wax lacag oo laga filayo bisha 10aad October ma jiro taakulaynta ciidanka midowga Afrika 100% ay fashil noqonaysaa haddii aan heshiis dhab la helin bilaha August iyo September waxaa jira marka dalal ilaa 3 dowladood ah oo reer galbeeda oo si cad madaxweyne xasan sheekh maxamuud ugu sheegay inay ka hor jeedaan ama ay ka hor imaanayaan ama ay diidan yihiin in la baadigoobo dowlad booska Mareykanka buuxisa oo Soomaaliya dhaqaale siisa iyadoo aan laga heshiin arrimaha siyaasadda reer galbeedku hadday diidaan Mareykankuna uu horay go'aan u qaatay xasan sheekh ma haystaa dowlado dhaqaalaha si bixiya si uu doorasho booba u qabto waxaan bal idinla wadaagi doonaa dadaalkii dowladda dhexe federaalka Soomaaliya oo meel adag taagan ciidamadii ka soo baxsaday dowladda Puntland ee u tilaabay dhinaca galmudug cadaado ay iska xaadiriyeen iyagoo ka cararaya maamulka Saciid Cabdullaahi Dani waxaa halkaa kula kulmay wafdi ka socday dowladda dhexe federaalka Soomaaliya maxaa loo sheegay diyaar ma u yihiin ciidamadii ka cararay Puntland in ay ka qayb galaan dagaalka ciribtirka argagixisada shabaab oo ay ka dagaalamaan galguduud iyo waliba shabeellada dhexe xaaladda ciidankii ka cararay Puntland ayaan idinla wadaagi doonaa kuguna soo gudbi doonaa barnaamijka Allah idmo ciidamo dhul nabada ka soo tagay Garowe Galkacyo Boosaaso halka isaga noolaa oo kibirsan ayaa waxay ka carareen ciidankii Puntland waxay u tilaabeen dhinacii galmudug waxay islahaayeen dhaqaale fiican ayaad helaysaan oo wax idin dhaama madaxweynaha Puntland ayaad la kulmi doontaa xasan sheekh maxamuud amar buu dul dhigay horta hubka ay wataan waa laga wareegayaa waa koow askari Puntland ku noqon doona ma jiray waxa la geenayaa xero tababar waxayna u diyaar garoobayaan dagaal lagu ciribtirayo argagixisada oo looga dagaalamayo deegaano aynan iyagu degin dhul dadkii iska lahaa ay ka carareen ayuu nin majeerteena ama nin leyla kasa ah waxa uu diyaar u noqon doonaa inuu argagixisada ka xoreeyo aadaya baa loo ka dagaalamayaa waa shabeellada dhexe masaajid cali guduud uu xoreynaya shabeellada dhexe hiiraan buu ka dagaalamayaa deegaanada ay shabaabku ka joogaan galguduuda la geynayaa dhul wacayslow ka dagaalamayaa dhul murusade ayuu xoreynayaa dhul daa'uud dhul ee dudublow xoreynayaa dhulka kale ee galmudug laga haystay argagixisadu joogaan ninkaa majeerteena ka soo cararay maamulka Puntland baa lagu xoreynayaa walbahaar iyo shalayto ayay ku jiraan dhalinyaradii ciidanka amniga Puntland ka cararay waayahay madaxweyne xasan sheekh wuxuu ka yiri marka ciidamadaas madaxweynaha wuxuu yiri aniga mushaar fara badan ay iga cuneen mushaarkii aan siiyey ayaan rabaa inaan ka dhalaaniyo waa in ay dhulkayga ii xoreeyaan bilaash ma mushaar u siinay dowladdu $200 ayay ku bixi jirtay bila mid kasta ama askari kasta oo ciidamada dowladda ka diiwaan gashay maantana iyaga laga rabaa
in ay dagaalkaasi ka soo dhalalaan xasan sheekh mushaarkii buu rabaa inuu ka shubto waa ka rajo badan lagama qabo in la soo hubeeyo oo la keeno aagga kadibna ay puntland la dagaalamaan rajo badan lagama qabo maxaa yeele dadka deegaanka diyaaru ma aha in ay la dagaalamaan dadka kale ee reer puntland maanta ma jiro nin sacada oo qora qaadanayo oo majarteen garab istaagaya oo puntland duminaya waxay aaminsan yihiin dadka gaalkacyo degan bariga iyo koonfurta dad walaalaa wada dhasho muddo dagaalamayo amnigooda inay sugaan diyaar u ah cid marka duulaan ku ah puntland oo xasan sheekh maxamuud garab taagan oo deegaana ma jirayso marka waxaa qasaba askarigaa ka soo cararay puntland inuu dagaalka eribtirka argagixisada shabaab u galo aadaya baa lagu xuraynayaa eeggaasaa lagu sifaynaya inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun adoo dhul nabada ka soo tegay aadaya baal ka dagaalan adoo garawe iyo gaalkacyo ka yimid masaajid alguduud xabad ka rid wallahi nasiib darraa ku dhacday nasiib darro ciidanka kale ee jimcaale jaamaca takar oo hadda karkaar u gudbay ragga raaxo ayaan arkayay hadda iyagoo ku dhex dhuumaalaysanaya dhowr mar ayay farriin usoo direen wasaaradda gaashaandhigga waxay yidhahdeen ciidankii amniga puntland la daba taagay wax kale looguma jawaan ilaa aad ku noqotaan carmo dowladda dhexe federaalka soomaaliya garabka ma helaysaa barta aad ka soo cararteen ku laabta ilaa aad ka tagtaan halka aad ka soo cararteen annagu wax mushaara ama wax garab istaaga nagama filaysaan ogolaan mayno yeelimayno maxaa u dana anigu talaan qabaayo xasan sheekh intay naf ka raadinayaan ciidankan ay ka cararayaanoo ila waa la daba taagan yahay weli inay isku dhiibaan baa habboon haddii kale wax wanaaga oo madaxweyne xasan sheekh ay kala kulmayaan ama macquula oo suurtagaala oo ay halkaa ka helayaan ima muuqtanay alosaalaqura waayahay wixii ku soo kornaa xaalka ciidankii jimcaale waa ka soo warrami doonaa durbaankii xasan sheekh ee dhinacii puntland iyo qaskii ka taagnaana si gaara ayaan uga soo hadli doonaa balse waxaan rabaa inaan dul istaago baadigoobka dhaqaalaha ciidanka midowda afrika ee soomaaliya jooga 18 sano soomaaliya ku gaareen aad baan uga xumahay waa ka mushaar badan yihiin waxna ma qabtaan ciidanka midowda afrika waxaan ogahay askariga soomaaliga ah ee dhimanaya ee dhaawacmaya 100% inuu ka karti badan yahay askariga dhaqaalihiisa la raadinayo ee ka socda dalal afrikaana oo aan dhimasho diyaar u ahayn dagaal toos ay ka qayb galeen ay guulaysteen ma muuqato amniga madaxda dowladda keliya sugan iyadoo weliba xitaa hadday dhibaata ay dhacdo askariga soomaaliga ka horreyn anigu waxaan qabaa haddii askariga soomaaliga mushaarka hadda ciidanka midowda afrika la siin lahaa wallaahi midowda afrikana looma baahnaa lahayn deegaano badan oo maanta amni darre ay ka jirtaan wiilka soomaaliga xoreyn lahaa waxaan anigu aaminsanahay askariga soomaaliyeed ee maanta $150 iyo $180 la siiyo haddii mushaarkiisa rigli ah $500 laga dhigi lahaa ilaa iyo $1,000 ilaan hadda askarigan xabashiga ah sanku intaa uu dhan yahay ee maanta ku ilaalinayo $1,800 buu ku xisaabtama askariga soomaaliga $500 haddii la siin lahaa bal fiiri oo maanta mushaarkaasi laga bixin lahaa jeebka shacabka wallahi diyaaray shacabka u yihiin ciidan qaran oo aan qabyaaladaysnayn oo aan siyaasadda ku dhex milmayn haddii maanta soomaali la tuso wallahi mushaarka waxaa bixinaya shacabka laakiin waa ciidan aan siyaasad shaqo ku lahayn qabyaalad ayna ku jirin shacabka soomaaliyeed ku aad qofkiiba $0.5 ayuu ku shubayaa akoon dal iyo dibad meel walbay joogaan ilaa $0.5 fiiri $0.5 haddii maanta qof kastoo soomaaliyeed akoon la tuso lana qanciyo annagu ma rabno ciidan qabiilaysanoo siyaasi garab taaganoo ku duulaya qabiil kalena ciidan siyaasad ka madax bannaan oo cadowga soomaaliyeed beegsanaya haddii nala tuso annagu $0.5 diyaaray naga tahay qof kastoo soomaaliyeed wallaahi waxaa ku filan qurbo joogta keliya ku filan dadka soomaaliyeeda gudaha dalka joogana wallaahi maalin cad ayay lacagtaasi bixin lahayn laakiin maxaan u baahannahay madax qabyaaladda ka miiran askarigana si qaran loo diiwaangeliyo nasiib darray noo tahay inaan maanta askari afrikaana aan baryayno oo aan ka awood badan nahay 100% shalana aan ka awood badnayn allahu naxariistay dowladdii maxamed siyaad barreen dalal annagana hoos imaanayay ayaan maanta waxaan leenahay walaalayaal $2,000 aan idiin raadinaynaa naga teginina maxnuu kalif qabyaaladdan xasan gurgurto oo wato kale
waxa maanta nagu kalifay qabiilkan uu xasan sheekh afuufayo iyo dhibaatadan maanta qaranka Soomaaliyeed ku habsatay oo xasan gurgurto la barwankaya dowladdii Mareykanka waxay tiri anagu wax lacag aan ku bixinayna ciidan midowga Afrika ma jiro maxaa yeelay xasan sheekh wada hadalkii waa diiday in la heshiiyo waa diiday inay Soomaali midowdu waa diiday anagu kaligii taliye raba inuu dalka boobo kursiga boobo anagu wax lacag aan ku bixinayn ma jirto halkaas markay arrintu istaagtay madaxweyne xasan sheekh dowladdiisu dadaal adag waxay u gashay sidii ay u heli lahayd dhaqaale lagu buuxiyo booska dhaqaalihii Mareykanka uu bixinayay meel kasta la garaacay albaab walba la garaacay reer galbeedkii hadda soo jeesta ilaa 2 dal ilaa 3 dal oo reer galbeeda waxay hadda rabaan in arrintaasi la hor istaago doodii ay dowladdu waday reer galbeedkiiba ka hor yimid waxaa la leeyahay annagu ma rabno mana buuxinayno lamana raadi karo booska Mareykanka uu baneeyay dowladda dhaqaalahaasi bixisa haddii aan laga heshiin arrimaha siyaasadda maxaa la doonayaa inuu xasan sheekh la heshiiyo golaha mustaqbalka in doorasho loo dhan yahay la qabto in doorashooyinkan ka socda Baydhabo galmudug dhuusamareeb tan la rabo in jowhar laga qabto lagu bedelo doorasho wada ogola waxaa la rabaa tartan cad oo cabdiraxmaan cabdishakuur ka qayb galayo shariif sheekh axmed ka qayb galayo xasan cali khayre ka qayb galayo saciid cabdullaahi dani ka qayb galayo maxamed cabdullaahi farmaajo ka qayb galayo loo dhan yahay laakiin doorasho la og yahay qofka soo baxaya ee uu xasan sheekh wado cid bini aadana oo lacag ku bixinaysa ma jirto haddii la waayo marka maxaa dhacay sidii horey u dhacday wadamo fara badan oo ay argagixisadu qabsadeen ayaa la rabaa in muqdishona ay argagixisadu ay gasho haba sugin ciidanka midowga Afrika haddii la gaaro bisha 10aad ee Oktoobar albaabadu way soo xirmi doonaan fursadda la haysto waa Agostada hadda aynu 9 maalmood ka marayno ilaa iyo September haddii September iyo Agosto go'aan rasmi la waayo muqdisho argagixisa galaysa ciidamadeenu laba ma isku buuxi karaan dhaqaale la'aan iyaga xitaa mushaarkoodu waa qalqal maanta lacagta xasan sheekh uu siin lahaa ciidanka qaranka wuxuu ku abuurayaa maleeshiyaad iyo dhul nabada in laga qaxo maanta xasan sheekh wuxuu lacag ku bixinayaa in la barakiciyo shacabka reer Puntland wuxuu maanta mushaar ku bixinayaa ciidan iyo maleeshiya laga dhex abuuro dhul nabada xataa maanta uma ogola mushaar ciidankan ka hortaagan magaalada muqdisho argagixisada duulaanka laaluushka maanta mahad karata iyo koba ku dukaday lagu siinayo qaraxyada muqdisho ka dhaafa maxaa loo sii waaya askariga qaranka war maanta laaluushka mahad karata la siinayo iyo waliba Yuusuf koba ku dukaday oo la leeyahay qaraxyada joojic waxaan rabnaa inaan qaadano iskoor madaxweynahana magaca dal xureeyo in laga qalqal geliyo ma rabno maxaa askariga Soomaaliga loo sii waaya lacagta maanta lagu bixinayo in la iska hor keeno shabeellada dhexe iyo hiiraan oo la leeyahay abgaal waxaad tiraahdaan haddii nin xawaalaa uu madaxweyne hirshabeelle ka noqdo wallaahi ka talin maayo deegaanada beesha abgaal ay degan yihiin xawaalana la leeyahay kursigiini laydima ogola ciidan maanta lacagta lagu bixinayo maxaa ciidanka qaranka mushaar looga dhigi waayo lacagta maanta lagu bixinayo dhulka nabadda ee Puntland in lagu argagax geliyo shacabka maxaa ciidanka qaranka loo sii waayo waa dowladda maanta dhaqaale ku bixinaysa xasan sheekh maxamed inuu mar kale talada dalka qabto war rajaa laga qabay dalalkii carbeed sacuudiga lacagaa laga doonayay dowladda imaaraadka dowladda qatar wallaahi ilaa iyo hadda waxaan turki ahayn lama hayn turkiguna inuu adiga wax kaa qaada mooyaane inuu wax ku siiyo waa habeenka xalay aabto hubkii dadkaaga lagu layn lahaa buu ku siinayaa miigagan aad arkaysaan oo xasan sheekh uu isku xayeysiiyo dad masaakiina oo waxba galabsana lagu duqeeya mudaaharaadka hadda banaanbaxa shacabka ay ku diidan yihiin diyaaradaha turkiga ee ka socda deegaano hoostaga hirshabeelle iyo koonfur galbeed ma maraysi karto shacabkii aan uga xasuuqaya turki inuu dhibaato ku geysto mooyaane faa'iide kama sugaysid marka xaaladdu waxay taagan tahay dhaqaale gacan laguma hayo ciidanka midowga Afrika waxba looma hayo kabkii dhaqaalaha ee Soomaaliya la sii jiray ee bangiga adduunka bisha 10aad rajo badan lagama qabo haddii bisha 10aad xitaa bangiga adduunka lacagtii loogu talagalay kabka miisaaniyadda dalka laga waayo xataa waxaa furfurmaya gudaha dowladdii xasan sheekh maxamed war xasan sheekh talada dalka meel xun bay maraysaa war Soomaaliya waa kala tegay war Soomaaliya rajo badan oo hadda laga qabi kara ma jiro rajada maanta ciidanka midowga Afrika aan ku baryayno
mid lamida midnimada ummadii Soomaaliyeed baa lagu kala tegaya war 70 jirata war cimriku ma dhinna hadduu dhiman yahayna ma badna madaxweynuhu joog ha noqonin barfaysalkii Soomaaliya burburi